waxa la inaga rabaa laba qaybood bay noqonaysaa oo midna waa nidaamkii siyaasadii lagu maamulayay ee xukuumadda laga rabay oo ay talo ka bixino midna waa tii shacbiga iyo taladii shacbiga lagu lahaa in doonayay lagu gudbino way haddaan ku horeeyo ta xukuumadda waxa filayaa maanta hol wanaagsan bay qaatay siyaasad cad oo ay ka qaadatay wasaaradda beeraha dadaal badan buu wasiirkaasi intii muhiimiyey uu wadaa in dadkii la wacyigeliyo gobolladii oo dhan la dhiirigeliyana wuu ku jiray waanu ugu mahadnaqaynaa waanu kusoo dhaweynna waan ku taageersannahay runtii inay doolkaa iyo siyaasad cad qaataan sidii wax soo saar dalku u yeelan lahaa miisaaniyadda wasaaradda beeraha oo sanadkan la kordhiyey waxaan jecel lahay in sanadaha dhammaan in la sii libilaabo haddii aynu doonayno inaynu dalkani ka baxo saboolnimada oo taargetkeedu noqdo inaynu horto waxaynu cunayno inagu la soo baxno inta aynu waxaynu cunayno dibad looga baahan yahay ee lacag adag baa loo baahan yahay markaa hadba inta aad dhinto waxaad dibadda uga baahantahay baahida ayay ku xidhan tahay inuu dhaqaalaha koro markaa waxaan soo jeedinaynaa kow wasaaradda ganacsiga xeerkan wasaaradda ganacsiga kala xadayntii la sameeyo oo la joojiyo liisamada iyo fursadaha lagu bixinayo in tamaandhada laga soo geliyo dalka dibaddiisa in bashasha laynooga keeno dalka dibaddiisa wixii dalkan laga soo saari lahaa horta aynu mamnuucno in dibadda laynaga keeno markaynu mamnuucno baahidii waxay imanaysaa dadku inuu soo saaro suuqa haddii qofkii wadaniga ahaa wixii uu soo saaray ay jebisatu dibadda ka timi dee wuu niyad jabaya markaasi baahidii suuqii loogu xakameeyo waxaan soo jeedinaynaa in ruqsadaha lagu ogolaanayo tamaandhada iyo basasha iyo liinta masar ka imanaysa horta iyo beedka inaynu xakamayno horta joojino qodobkaasi waa qodobkaa inaynu markaa dadkeenina ku dhiirigelino oo suuqii aan la tegin 3 biloodka maanta waqti roobaad baynu ku jiraaye 3 bilood ee ugu foolle ay kaafido tamaandhadii iyo basashii iyo khudradii yarnayd oo dhan inay dalka gudihiisa ka soo baxdo lagu dhiirigeliyana waa soo jeedinaynaa oo dadkuna abaabulka iyo tabaabushaha sameeyo lagu tartamo wax soo saar degmo waliba inay wax soo saarkeeda soo bandhigto gobol waliba wax soo saarkiisa beeraha inuu soo bandhigo ama khayraadkiisa ama badha noqdo ama beri ha noqdo qodobka labaad in doonina waxa weeye dhanka xeebaha haddii khayraadkii kalluumaysiga la rabo il keliya jirto waa taa berbera maanta dhammaan xeebahaasi imika wasaaradda kalluumaysigu waxay ka wadaa qaboojiyayaashii baraflayaashii baa la dhigayaa laakiin dabeecadda iyo xaaladaha ka hor imanaya waxaa ka mid oo dhaqaalihii kobcinaya in waddadii isku xidhaysay magaalooyinkiina in la sameeyo oo aynu isku xidhanto si dhaqaalihii u koro waddooyinku waa ka qayb weyn markaa in siyaasad laga yeesho iyadana wasaaradda gaadiidku imika runtii dadaal badan bay wadeen waddooyinkii hore iyo wixii hore ayaa burburay oo tacabkooda lagu jiray laakiin waa in qorshe cad loo sameeyo sidii la isugu soo xidhi lahaa xeebaha iyo magaalooyinka waaweyn si khayraadkaa badda ka soo baxayana u helo suuq kaasaa keenaya markaa inaynu etoobiyana baahideeda dabooli karno maanta waxaan hubaa in khayraadka kalluunku inooga yimaado xamar ama Puntland kalluunka lagu cunaa halkan wuxuu ka yimaadaa Puntland buu ka yimaadaa iyo Soomaaliya badda intaa leegna waynu leedahay qalabkii iyo adeegyadiina waynu haynaa war waxaynu u baahannahay inaynu intaynu joojinno waxa dibadda inaynu waxa gudaha dhiirigelino intaasaan ka odhanaya waxaan usoo noqonayaa laba qodob oo aan leenahay siyaasadda lagu karo xeerkaa wasaaradda ganacsiguna dib loo eegaano waa muhiim xeerkii isgaarsiinta qaranka ee aynu samaynayna in dib loogu noqdo si uu cadaalad u yeesho oo tartanka ganacsiga ee isgaarsiinta ee la wareeriyey dee inuu cadaalad noqdo oo xor noqdo oo cid waliba ku tartami karto oo suuq xor oo helana waan soo jeedinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.